Giving up, letting go. Times we might feel compelled. Looking down from the heights that we have built all by ourselves. And there is fear of the unknown, but we cannot lose control when we feel. waxaan bartay hal shay macnaha adoo gaari wadatid ha isku dayin qof wadada maraya inaad caawiso waxay ahayd habeenkii sabtida saacaduna waxay ahayd 7 saac habeenimo safar dheer baan ku jiray waxaan u socday New Jessica wadadana aaday u dheereed aadaan u cabsanay waxaan daartay lanka gaariga zaa'idaan u daaray macnaha saan oo arko qofka iga soo horeeya si kadisa waxaan ku arkay nin dheero jaakad madow xiran oo gacanta ila laadinay oo igu yiraahday "Oriyo ii jooji waxaan rabaa inaad qaadid." Anna aadan u cabsado waxaan sameeyaan garan waay mar waxaan isdhaa maskaxdeeda waxa ku soo dhacday muu joojisaa mise waa ka dhaqaaqdaa gaarigan watay uu ku soo dhawaaday ninka macnaha wuxuu ahaa nin 28 sano jira jaakad weyn u xirnaa iyo surwaal jeans oo buluug ah anna go'aankayga wuxuu ahaa muu istaajisaa mise waa ka dhaqaaqdaa markii dambena waxaan go'aansaday inaan istaajiyo gaariga waxaan ku yiri saaxiib xagee u socotaa wuxuu igu yiri wadada dhexdeeda u socdo miiqoodayso soo xiib anna aadan u cabsado waxaan isdhaa nin wadada dhexdeeda u sii socda waaba nin jinni ah wuu soo galay albaabkii aan ka furay wuxuu ahaaba nin doqon oo reebaadiye ah albaabkii xataa muusan xir waxaan ku yiri war xoolayo albaabka naga war xoolayo xooluhu dhala albaabka naga xirna casiyo ani aadan u hanaaqay markii dambe uu soo agfariis ninka aadoo igu hanaaqay wuxuu igu yiri waryaa maaniga ay leedahay xoolaha deecaynaysa waan ku dilaayo caawa xaqiiqo galayso min dheerna waan wataa ana waxaan ku yiri waxa iga qaadaysa mala xoolaha taawas aadan u hanaaqaani markii dambe il kululu igu soo fiiriyo wuxuu igu yiri ima noolaanaysa albaabku xoog igu soo xiray macnaha albaabada gaariga xirta ana gaarigii aan waday waan soconay gaarigan xawaare saraan ku waday 75 aadan u waday gaariga waayo wuxuu saarnaa highwayga waxaan ku yiri waryahay xagee u socotaan iyo meesha u socoteen oo dheera jawaab dhanaan ka waay markii dambe wuxuu igu yiri cabaar bino jirtay socaamoon ku dilaya wariya ani aadan u cabsaday maraan isdhaa ninkan raadiyaha ku shidaa gaariga haddana waxa isdhaa kan waa xoole ama ku dilaa mindi weyn uu wataa markii dambe waxaan arkay ninkan uu zaidi soo fiirinayo ani waan yaabanaa ninka muxuu ka fiirinaa islaha waxaan dhahay ninkan waa inaan ka saaraa gaarigayga waayo wuxuu ahaa nin tuuga highwaygaana saarnaan waxaan isku dayay ninka inaana fiirinin ugu dambeyntii uu iga jeestay markaasaa wuxuu yiri ma ogtahay ani baryahan dad badan maana dilin waana walwalsanahay awal hore dad badan baan dili jiray intuu hanaaqay oo mindi jaabka kala soo baxay wuxuu igu yiri mindidan 2 isbuuc aan watay dadaa rabay inaan ku dilo ayaan ku dilaa Aisha mindi weyn buu watay gacanta ku sitay ani wadnihii caloosha zaid ii xanuuna waxaan ku yiri saaxiib mindida dhinac naga dhig balni oo maalanta markii dambe wuxuu igu yiri jeedka hoostiisa istaajadi kale aan ku dilaa waxaan u soo dhawaanay meeshii igu yiri istaaji ana aadan u walwalsanaa waxaan sameeyaan garan waay markii dambe 3 calaamad oo ku taala gacantiisa calaamad kamida ayuu mindida isaga jaaxay dhiig badan ka daatay ninka waxa isdhaa mawaalin ana waxaan ku yiri saaxiib waa inaad gaarigayga ka degtaa hadda saacadan la joogo wuu soo fiiriyay wuxuu igu yiri ka bax gaariga ana waxaan ku yiri kama baxay gaariga ana iskala marka kadib mindi uu soo qaatay wuxuu igu yiri ka bax gaariga daqiiqada yar waxa rabaa inaan ku tuso geedkaas gadaashiisa waxaan dareemay nolosheeda khatar inay ku jirto markii dambe waxaan ku yiri okay saaxiib wuxuu igu yiri ka bax gaariga waan soo baxay albaabkii gaarigan furay sidoo kale asagina uu soo baxay gacmahan kor u qaaday markuu igu soo dhawaaday waxaan ku orday gaarigayga kadib jaanisaan helay
gaarigan xoog u kiciyay waan waday waan carar ninkiina meeshan uga dhaqaaqay anoo xoog u neefsanaya xaafadda imaaday aadna waan u cabsanaya qof walba waxaan ku baraarujin lahaa wadada macnaha adoo maraysid qof wadada maraa hadduu ku yiraahdo ii jooji gaariga ha u joojin hore u soco waana qiso xanuun badan oo igu dhacda runtii weligay intaan noolahay ma ilaabi doono Giving up, letting go. Times when you might feel compelled, looking down from the heights that we have built all by ourselves. And there is fear of the unknown, but we cannot lose control when we feel like the world is against us. Do we go is a question to ask. There are so many choices that it's hard not to look past. What is real and what is fake?